waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sidaad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyay shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno xeeritaankii ka fadhiga saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen gudoomiyayaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyay inay u dhacdo doorashada waxaan intaas dheer gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u cadeeyay mar waraysiyo laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyay sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29 bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaraha si ku celisa haddana ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu cadeeyay dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay'adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinayo ku adkeenayo inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyaasha inay laga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaa la socotaa sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaran jabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwanayd tii ka horreysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliya mar kasta talaabo ayaana hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horreysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horeyso qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada waa ognahay qabyaaladdu waa aragti gaaban weeye waa caqli hoose oo guracan waa tartan iyo tabasho u dhaxeeya jifooyinka
oo wada dhashay jifooyinka wada dhashay ma aha wax ka turjumi kara danaha qaranka ama ka tari ama la tartami kara qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo war u soo taageen waana soo aragay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diido sidee aan ku gaaraynaa dowlad hufan oo caalamka dowladahooda la tartama dhanka kale waxaan xisbiyada doonaya inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmayo inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka mudanayaal iyo marweyn waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kala aragtid wanaagsan laakiin in la is-ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeena ahaa ama ahayd in la helo Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas inay noo ahaato astaan qaran weyn mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay Soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay Soomaaliya oo barwaaqo ah Soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedu haddii ay tahay waxa la yiraahdo blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shidaal iyo waxyada hadday tahay kheyraadka haddii nabad la helo oo ay daba socotaa nabad inaan u tagno kheyraadkeena bariga oo hadday tahay macdano kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo Soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruudu waxay tahay in la helo nabad iyo dowlad ku hagta nabadaas yaa qasab ah Soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uu soo dhexgelin Soomaaliya oo mid ah weyn iyo Soomaaliya xor ah oo danaheeda iyadu ay gaari karto Soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan nabad haysan Soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan midoobin oo aysan mid ahayn macnaheedu waxa weeye mar walba waxaan ku jiraynaa gunnimo annaga maaha waxaan ku jiraynaa waxaan aan u gudbinaynaa carruurteena iyo carruurtooda yaan u gudbinaynaa macnaheedu waxay tahay inaan ka shaqeyno nabadda inaan raadino in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalano inaan la dagaalano qabiilistayaasha dadka qabyaaladda ku shaqaysta oo ummadda Soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliya maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda maaha waxaan ka hadlaynaa 30 waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaa waxay muuqanayaan 30 sano ka bacdi ma hadda waxaan sameeynaa ee waxa dhaxli doona carruurteena iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas'uuliyadeenu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareyno mustaqbalka carruurteena iyo mustaqbalkooda waxa xaqiiqo ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaalaan Soomaaliya waa inay nabad hesho Soomaaliya waa inay mid tahay Soomaaliya waa inay madax bannaan tahay go'aanadeedu madax bannaan tahay haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay sameynayaan abaarahana naftigooda waxa weeye waa u diyaar garoobi karnaa maxaa yeelay dalkeenu dal biyo la'aana maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badday aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabadaas waxa xaqiiqo ah in waqtiga abaaraha waqtiga roobka in la isu diyaarin karo waqtiga abaaraha ah oo biyahaas laga khasaaro badda aada in biyo xireen loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelasha la aadin ay biyaha ay diyaar loogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeena ah dowladani
idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan idhaahdo waa dowladda shacabkeenna waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala arki duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen ma aynan qaybsamin cid idin qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mooshinka ma aynan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladdeennii aan ka wada tirsanayn inay hesho xasiloon oo shacabka Soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladdani waa dowladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah oo u badan agoon yaan siinaa waxbarasho waxaan soo celin 24 iskuul yaan soo celin waxaana ku soconnaa 50 iskuul yaan soo celinno sanadka dhammaantiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaynan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin carruurta Soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna weli waxaa inoo haray safar dheer yaa noo haray dowladii 3 sano iyo 10 sano meesha rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safar oo fursad siiyey ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda Soomaaliyeed aad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo waqtiga qadada hal aan waqti qadada la joogay walaal sanadkiiba haddii mar 3 mar haddii la isu yimaado sanadkiiba haddii la isu yimaado in la isdhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijino marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijino higsigeena qarannimo waxaa dowladdani xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aad doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isku howlin inaan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa ah inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan
bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda. taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida. waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena. waxaad samaysay taariikh, halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo. oo higsigeennana muxuu yahay? soomaaliya oo nabad ah, soomaaliya oo mid ah, soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto, oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa. waxaan shaki ku jirin in dib u dhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan, runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo. laakiin waxaa alla mahadiisa ah inaan hadda ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh. guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaa amniga magaalada Muqdisho inkastoo aysan fara ka qodnayn weli. tusaale ahaan 3 bilood ee ugu horreysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi, halka 3 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambi. sanadkan aan ku jirno 3 bilood ee ugu horreeyay waxaa ka dhacay 24 fal dambi. fari kama qodna ilaa aan geenna meel hoose hadduu ilaah yidhaahdo. waxaan markale shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo idinku kow aad ka tihiin aan ku boorinaya inaan si wada jira looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida orgeysiinta. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan waqti hore aan bilaabno inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan. waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqaynayno AMISOM, African Union, European Union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka, kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhamaystiran ugala wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu ilaah yidhaahdo. waxaa la yidhahdaa transition plan yaa la yidhahdaa. waxaa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtagelaysa kow in aan annagu qaadanno mas'uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna. 2 in aan la wareegno walaalaheenna AMISOM oo maalin iyo habeenna in difaaca dhiigooda noo huray inaan kala wareegno hawsha. weliba inaan wadamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano hadduu ilaah yidhaahdo. si ujeedooyinkaas difaaca ah loo gaaro waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaya inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay u garab istaagaan. mudanayaal iyo marwooyin, arrimaha dhaqaalaha waxaa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dowladdan jirtay aan wax badan ka qabanay dhinaca kobcinta dhaqaalaha. sidaas awgeed marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee ay keentay caabuqa corona, waxaan alle mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan sanad walbaba aan kor u qaadno dakhliga dowladda ee gudaha, kaas oo ay sabab u ahayd inaan la dagaalanno musuqmaasuq iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha. waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wada jira ama aan sii wadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa hadduu eebba yidhaahdo. waxaan sidoo kale marag madoonto ah
in hay-adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaano IMF-ka iyo bankiga adduunka World Banking ay qoraaladoodii ugu dambeysay ay qireen in qaab xisaabeedka dowladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran taas oo noo sahashay in laga cafiyo deymahaas tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa in ka badan 50 sano mudanayaal iyo marwooyin intaas oo idin waxaad ka ahaydeen qayb maxaa yeelay xasiloonida dalka idinkaas ka lahaa arrimaha garsoorku waa dhexaadka nolosha ummadda Soomaaliyeed ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato sidaas awgeed waxaan isbedel joogto ah aan ku wado hay-adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeena qarannimo waxaan bilownay inaan hay-adaha garsoorka hay-adaha cadaaladda aan salka ka soo dhisno waxaana arrintaasi soo nooleysay kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan garsoorkooda sidoo kale si aan sare ugu qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadaha waxaan hirgelinay imtixaano furan oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb geli karo si aan u xulanno garsoorayaal u carbisan aqoonna u leh shaqada loo igmay mudanayaal iyo marwooyin hawlahaas oo dhan waa bilow mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayanaha ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka qaranka waxaan idiin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay-adaha kale ee dowliga ah in ay khusayso arrintan in kalfadhigan waqti badan la geliyo sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqan geliyaan arrimaha dibadda dowladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqeyn iyo isfaham waxaan qayb horyaala ka noqonay isku soo dhawaanshaha iyo wada shaqeynta gobolka Geeska Afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale waxaan sida la socotaan aan si dhow arrimaha Geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda wadamada Geeska Afrika kuwaasoo aan isla garanay in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin aan isaga kaashanno arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna nooga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka sidoo kale waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqeyn hadday noqoto dowladaha dariska in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado waxaana ballan qaadaynaa in dhankeenna arrintaasi aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka galaynin qaarnimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambalyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa caado ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadi'daas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo nooleynta qarannimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo
kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo ma liibaanaha lagu liibaano 30 sano oo khibrad iyo leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo geliyay haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada Soomaaliyeed intuu waqti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dowladda kala shaqeyn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo aad u adag dagaal qabiil dagaal argagixisnimo abaaro iyo dadkii iyo dunyadii halakeeyay iyo wax la mid ah wax kasta oo na soo maray waxa alle mahadiisa inaan wali Soomaali ay taagan tahay inaan wali aan jirno insha Allah Soomaaliya waa jiri doontaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada aan ka codsanayaa inay laabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeena halakeeyay waxaa sidoo kale ummadda Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dowladnimo Soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda fakhiga iyo argagixisnimada kuwaas oo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yeelno aan xoojino mudanayaal iyo marwooyin waxa aan si nasasho la'aan aan isugu dayn inaan kor u qaadno xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka xiriirkaasi oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham iyo in la xurmeeyo dastuurka ku-meel gaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka Soomaaliya waxaa alla mahadiisa in aan guulo ka gaarnay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad COVID-19 oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas inta tabarteenu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaar kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daadadku ay waxyeelayeen mudanayaal iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed waa dad waara ah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadalladeena wax kasta oo jirana aan ku dhamayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii gobolka Banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelna oo aanu si gaara meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar kale waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha
dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuullada iyo xarumaha caafimaadka, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dowladda ama waddooyinka, dekedaha, iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyinka soo socda. waxaana idinku dardargelinaya ama idinku dardaarmaya inaan ka difaacno dalkeenna, inaan diinteenna aan difaacno, ka difaacno argagixisada, inaan ka difaacno qabyaaleystayaasha ama qabyaaladda, inaan ka difaacno, in aan la dagaalno fakriga. waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idin furmay ama idin furan yahay kal fadhiga toddobaad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.